habeen wanaagsan khiyaarta hawada naga dhageysanaysa waa mar kale iyo barnaamijkeena wararka iyo caawa qodobadan idinku hayana waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo imika hadlay ayaa waxa uu sheegay inaynu ka mid nahay hadda dawladaha ictiraafka ee dunida laga aqoonsan yahay sidoo kale wuxuu shacabka reer Soomaaliland ugu bushaareeyay in dhawaan dawlado waaweyn oo caalamka ay Soomaaliland aqoonsan doonaan warbaahinta dalka Israa'iil ee Soomaaliland aqoonsaday oo goor dhaweyd xogta Soomaaliland la wadaagtay caalamka kuna baahisay baraha bulshada nin la yiraahdo ayaan khaliif ayaa sheegay in xamar laga soo diro lacagta la doonayo in dadka reer awdal lagu kiciyo madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu doonayo inuu xiriir dhow la sameeyo dawladda Israa'iil daawadayaal qodobada ayaa ugu waaweyn wararkan caawidin hayno halkan anaga daawanaysaana waa Kennedy Media fadlan muuqaalka share garee YouTube kana ku soo biir hadii aanad hore noogu xidhnay hadda hore noogu xidhnay dood ma santahay haatan ku soo dhawaada warkii faahfaahsan waxa kale oo ugu sheeganaya shacbiga in dawladda kala badanina ay kusoo jiraan wadada oo ay ictiraafi doonaan hadii la yiraahdo cidii ka xun ictiraafka Soomaaliland waxa ku oran lahaa shaqadiina ku koobnaada daniina ku koobnaada Soomaaliland ictiraafkeeda cid joojin karta ma jirto waxa shacbiga u soo jeedinaya meel kasta ay joogaan inay maanta Soomaaliland waxay yeelatay oo iscadeeyay dad badan iyo dawlado badan oo cadaawad u muujiyay Soomaaliland iyo shacbigeeda annagu cidna cadaawad uma hayno laakiin kuwa cadawgeena muujiyay waa inaynu ogaanaa oo dadka inooga duwanaadaan oo ay ku tilmaano inay cadow yihiin kuwa inoo saaxiibkaana saaxiib bay noo ahaan doonaan haddii la yiraahdo waxaan soo jeedinayaa inaynu amnigeena ilaashano in qof kasta oo muwaadini uu booliis noqdo oo sirdoon noqdo oo nabadoon noqdo oo ilaaliye noqdo oo waardiye noqdo waxaan u soo jeedinayaa shacbigayga inay isku duubnaadaan arrinta ictiraafka waxay muujisay in shacbiga Soomaaliland boqolkiiba boqol mid yahay inaynu sii adkayno oo sii xoojino ayaynu u baahannahay guushana aynu wada ilaashano lacagta lagu gubayo boorama maanta lacagta waxa weeyaan Saudi Arabia laga soo diray ee Saudi ka soo baxday ee halka iyo Muqdisho kala dhacday waa warkii xalay u dambeeyay biyo kaba dhabcaankii Turkiga lacag ku sheegay waxa weeyaan Djibouti soo wada oo qacmahaba nagala bixi kar la adeemika ya oo ciidamada imika la geynaya oo lagu wadaa tuqoshi meesha la yiraahdo taqaanay sel ka tirsan waa ceelasha milixda tuqoshiyeed ayaa la geynaya ciidan lagu guraya waxaana Djibouti laga soo baxay Soomaaliland lagu dhaafaa khuruush baanay khuruushku de dhowrkii bilood bay qoran soo mari jirtay meesha walaal socdaalka waxaan la socodsiinaya oo leeyahay waxaad yeeshaan war khuruushku khuruush dhaafee horta la socdo halka $1 milyan oo akoon dad bareefada loogu soo shubayo halka milyan wuxuu ahaa xukuumaddu kale loo ogtahay labada xukuumadood markay isku dhaceen abaaraha lacagta loo soo diray China bixinay tiiba leeyahay shakhsi baa lagu soo shubaya lacagta badna qoladana qaadanaysa badna way celinayaan waxa loo celinaa kuwii Muqdisho wasiirka hawlaha guud ee Muqdisho ayaa lacagtaana soo diray $1 milyan taasaan sugaynaa imika waxaan leeyahay xukuumaddu de kulli
somalilan dee dowladnimo quraanjay leedahay waxayna ogeynaa waa waxaan dhacayn dee waxaan leeyahay il gaar ah u yeelato madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasaaradda ay khusaysaba waxaa dib u dhacan badan inagu keenayaa albaabadan xidho weeyaan horta qolada gobolkayaga kaa yaree magaranaysa agaasimaha guud ee waxbarashada ayaa naga fura albaabka iyo nin dee hargeysaba nagu xakumiye booramaba wasiir ku-xigeenka dowladaha hoose ninka xamarjal laydhaa labada albaab oo keliya noo furan annaga de haddaanu nahay qoladeeda ree awdal waxaan leeyahay markaa warkii la sidayba meesha labadaa waxaan ahaynoo dee meel la dhigi karayaa ma jirto waxaan leeyahay xukuumaddu dadkayga hala socoto ha eegato xogtan anigu waxaan ahay nin u dhuun daloola halkaa muqdisho iyo qorbahaba wixii laga soo diray nin u dhuun daloolaanahay kalsooni haddaanan qabin miidiya kama sheegeen miidiya haddee kamaan sheegeen oo maan idhahdeen dee waxaasaa jira maad garatay waxaa loo baahan yahayse oo taa ka sii muhiimsan shakhsi bareefadi dee waxbuu ogaan karaaye inay xukuumaddu akoontada la socoto lacagta lagu gubayo boorama maanta lacagta waxa weeyaan sacuudi arabiya laga soo diray ee sacuudiga ka soo baxday ee halkaa iyo muqdisho kala dhacday waa warkii xalay u dambeeyey biyo kaba dhabcaankii warkaan kuu sheegayaa waana la helayaa waad garatay xukuumaddana dee halkaa iyo halkan iyo meel walbaa loo joogaa waxaan leeyahay haddii aan laga warqabin ha la ogaado halisteeday leedahay lacagtaasi sacuudigu soo bixiyey turki baa lacag lagu soo wada waxa weeyaan jabuuta soo wada oo qacmahaba nagala bixi kar la'aadaya iminka yaa oo ciidamo iminka la geynayaa oo lagu wadaa tuqoshi meesha laydhaa mataqaana selal ka tirsan waa ceelasha milixdeed tuqoshiyeed ayaa la geynayaa ciidan lagu gurayaa waxaana jabuuti lagaga soo baxay somalilan lagu dhaafaa khuruush baan nahay khuruushku dee dhowrkii bilood bay qoran soo mari jirta meesha walada socdaalka waxaan la socodsiinaya on leeyahay waxaad yeeshaan waar khuruushku wuu khuruush dhaafee bal horta la socda halkaa waana la helayaa waad garatay xukuumaddana dee halkaa iyo halkan iyo meel walbaa loo joogaa waxaan leeyahay haddii aan laga warqabin ha la ogaado halisteeday leedahay lacagtaasi sacuudigu soo bixiyey turki baa lacag lagu soo wada waxa weeyaan jabuuta soo wada oo qacmahaba nagala bixi kar la'aadaya iminka yaa oo ciidamo iminka la geynayaa oo lagu wadaa tuqoshi meesha laydhaa mataqaana selal ka tirsan waa ceelasha milixdeed tuqoshiyeed ayaa la geynayaa ciidan lagu gurayaa waxaana jabuuti lagaga soo baxay somalilan lagu dhaafaa khuruush baan nahay khuruushku dee dhowrkii bilood bay qoran soo mari jirta meesha walada socdaalka waxaan la socodsiinaya on leeyahay waxaad yeeshaan waar khuruushku wuu khuruush dhaafee bal horta la socda halkaa dadka ka soo tallaabayana dhinaca qoladay doonaan baa hadaan ama ciise hadaan ama gadagursaba hadaane marka lacagta shacbiga reer somalilan baa rabaa in lagu kala dilamaya gobolka awdal in lagu burburiyo lagaga goy somalilan baa la doonaysa waa waxaan dhacayn wax dhici doona ama dhici doonana ama dhici karaba midna maaha waa niman ku riyooday waxaa dee iyagoo soo jooday riyoodeen marka waxaan leeyahay bal hadda qacmaha badiso xukuumaddu ay qacmihaygu ha dhuudhuubtaan dhulkaa farinta u diraysa laamaha amniga iyo weliba xukuumadda maxay tahay waxaan leeyahay amniga ha la sugo amnigu maaha nin qori haysta tan akoontadaa nagaga daran akoontadan lacagta lagu soo shubayo ayaa nagaga daran akoontadaasi akoont dowladeed waxaan soo marin waa dembi akoont sharci ku dhacaya in lala socdaa loo baahan yahay shirkadaa lagu soo shubaya barefad baana loogu shubayaa waxaas wax caqliga geli karaya maaha ha lala socdaan leeyahay halkaa xukuumadda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan leeyahay arrimahaas iyaynay hoos marin waad garatay yaa iyagu dee tegi maayana shaqaalay leeyihiin wax shaqaalaha ku dabagalaan leeyahay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka